asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. maalin wanaagsan kheyrta wada nagala xirta halkan waa bartaan youtube ku leenahay. xalay waata idiin soo gudbinay in weerar iyo qaraxyo ay ka dhaceen magaalada muqdisho, gaar ahaan isgoyska kilomitr 4, iyadoo halkaasi ay weerar ay ku qaadeen kooxo hubeysan, islamarkaana qaraxyo iyo dhibaato ay ka dhaceen. weerar toos waatii meesha lagu qaado idiin soo gudbinay. hadda xaaladdu weli waa adag tahay. shalay sidii loo galay ilaa xalay waa laiskula jiray, maanta waa laiskula jiraa. marka xaaladda isbedel weli oo weyn oo la sheegi kara kama dhicin. wararka waxay naga soo gaarayaan hadda magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ayaa sheegaya inuu weli socdo howlgalkii ka socday hotelka xayaat oo ay gudaha u galeen dagaalyahanno ka tirsan ururka al-shabaab. haddaba waxaa laleeyahay howlgalkii weli ma dhammaanin, wuu socdaa. wararka ugu dambeeyana waxay sheegayaan in hotelka laga saaray ciidamada alf group oo ilaa iyo xalay halkaasi ka dagaalamayay, waxaana laga bedelay kuwa ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliyeed ee kuwa lagu magacaabo haramcad. ciidamada haramcad ayuu aad u tababaran ayaa waxaa laleeyahay waxaa hogaaminaya farxan qaroole oo hogaamiyo ciidamada haramcad oo ah taliyaha gobolka banaadir ee ciidamada booliiska soomaaliyeed. waxaa laleeyahay asaga iyo ciidamadiisa ayaa halkaasi gaaray, waxayna isdhaafsaneen risaas culus oo haramcad iyo ururka al-shabaab halkaas ku dhex maraya. marka hadda xaaladdu weli isbedel weyn lama sheegi karo. saraakiishan waxaa laleeyahay dowladda federaalk soomaaliya waxay sheegayaan in weli ay halkaasi ilaa iyo laba ka mid ah dagaalamayaasha ururka al-shabaab ay ka dagaalamayaan, welina xaaladdu ay adag tahay. weli meesha sidii loo maleynayo ma aha. xalay habeenkii 1:15 ilaa iyo hadda aan idinla hadlayno oo sheegeen maqribkeedii kale ah, xaaladdu weli waa sideedii. isbedel weyn ma jiro. gandaalo iyo hubka culculus ayaan haystaan gudaha kula jiraan. halkaas ayayna kasoo toganaa dadka meelaha kasoo sheegan dhawaanayo. ciidamada ninkii meesha kasoo galay iridda ayay taagan yihiin, qaarkood midna kor ayuu saaran yahay xilli halkaas ayuu dadka liifayaa. marka howlgalkani ayaa qaatay saacado badan, waxaana weli halkaasi ilaa iyo xalay kooxda al-shabaab ay ka dagaalamayeen hotelkaasi. wararkan waxay sheegeen weerarkan wuxuu ku bilowday qaraxyo iyo dagaal waaweyn oo kafool ah. meed horle ayaana halkaasi laga soo saaraya gudaha hotelka. waxaa jiray burbur xoog leh oo soo gaaray hotelka iyo guryaha ku dhow dhow. aad ay rasaasta la isku wadaarsaday. maanta maraan isku dayna inaan tagno halkaasi aaga kilomitr 4, waxaa nagala soo celiyay intaan la gaarin kilomitr 4 21 October. jidkaas ayaan marnay oo dekada ka yimaado. marka halkaas waa nagala celiyey, dadka waa lasoo celinaya. dadka qaarna halkaas ay kasoo carareen, xabadaha rasaasta wiiftada ay kasoo cararayeen. anigii waan iska soo laabtay. baabuurta xataa kuma istaagayaan, waa iska soo lugeey, waa la iska lugeynayaa. marka halkaasi xaaladdu waa adag tahay. dhibaataduna waa sii kordhaysaa. khasaaraha dhimashada iyo dhaawacan weli waa sii kordhayaa. xaaladdu ma wanaagsana. qoys oo soomaaliyada oo ilmo iyo hooyooyinkooda xalay waa laga soo badbaadiyey, laakiin ilaa iyo hadda xaalku 100% ma aha. dagaalkina weli waa socdaa. waa dadka waxay isweydiinayaan sababta oo dagaalka u socda ilaa iyo hadda xaaladuna loo soo gabagabeyn layahay. cabsi fara badan ayaa jirto weli. marka ilaa iyo hadda halka dhaawac kor usii dhaafayo waxaa le ilaa 40. dhimashadan waxaa laleeyahay 20 qofood ayay gaaraysaa. xaalku waa kasii adag yahay. weerarkun waxawaaye mar ka dambeyso waa mid lagu kari layahay oo nimanka ay aad u dagaalamayaan, is adkeynayaan, guulna waa laga gaari layahay. marka way soo tarayaan, waxawaaye xaaladdu way soo taraysaa. waxaa lala yaaban yahay 2 qof ama 3 qof meel ku jirto laga bixin layahay. hotelkii gacanta ku dhigeen, iriday taagan yihiin, qaar dabaqay saaran yihiin. xaaladii waa sii xumaanaysaa. marka dhowr mare waxay sheegtay dowladda federaalk soomaaliya inay soo gabagabeysay, laakiin weli wax gabagaba la yiraha meesha ma yaalaan. xaalku waa sidiisii. weli jugtaa laisku hayaa. number 4 haddaa u dhawaato risaasta adiga xataa maqli kartaa, inkastoo risaasta gudaha kasoo dhaceysa ay tahay risaas joogta aysan goosgoos ay ku taxadarayaan in qofka meesha soo galaba dhag inay siiyaan ay ku dadaalayaan oo risaasta barara aysan iska siinaynin. laakiin ciidamada dowladda federaalk soomaaliya risaasta way iska shubayaan, oo marka qaar waxaa waaye dadka shacabka xaafadooda waxaa ugu tagaya risaas iska socoto oo dabaqa lagu gamayo. marka dabaqa way dhinac marayaan oo meelaha qaar ayaan iska gudbayaan dad iska socdo. xataa elbarka waxaa leeyahay risaas ayaa gaarto risaasta la isku ridayay. marka xaalku waa adag yahay. guul iyo wax la yiraahdo ma jiraan. sheekadu waa sii cuslaatay. dhowr mare dowladdu sheegatana waa soo gabagabeynaan, wax ka jira ma lahan. sheekadu waa meeshaada jugjug, meeshaada joog. dad fara badan ayaa laga soo badbaadiyey. dadka qaar waxay leeyihin milkiilaha hotelka xataa meesha uu ku dhintay. warar fara badan ayaa soo taraya. xalay 9 saac xalay wuxuu marayay 9 saac dhimashadu 12 qofood. waaga markuu baryayna waxay gaartay ilaa iyo 16 qofood. hadeertaan duhurnimadan ilaa galabnimadan waxay soo gaartay 20 qofood. welina waxaa leeyahay intaas uu kasii badan yahay. inta aan la xaqiijin oo gudaha ku jirto hotelka ayaa faraha ka badan. xaalku waa allow sahal. cabsidu way badan tahay. dagaalku waa sii kordhayaa oo maanta lama dhihi karo waa soo gabagaboobay. marba haddii sheeg uu soo habeensaday, habeenkiisa kale uu soo dhawaaday. xaalku ma sahlana.
marka waxaa leeyahay hadda guulo la sheegi karo oo dowladda federaalk Soomaaliya halkaas ka gaartana ma jiro, waana waqtigii ugu dheeraay oo ay sheeg dagaal oo halkaas ka socdo, meelaha hoteelada waa la geli jiray, dagaaladana way ka dhici jireen, laakiin xaalku sidan waa kasii duwanaan jiray. Marka tan waa qorshe aad u culus oo dowladda federaalk Soomaaliyana kuma baraarugsano, waxaana oo dhibaato ay waxaana howl ah kuma baraarugsano. ciidamada waxaa u maleysaa inaysan aad iyo aad u diyaarsaneyn oo marba ciidan la gelinayo alf group oo lagu yaqaano inay meelaha jebiyaan oo ay dhagxaan iyo rasaas iyo balaayo la dhacaan oo meelaha ay guryaha ku jebiyaan ayaa xalay ilaa saaka ku jiray. Hadda goordhow oo galabnimadan 11 saac ayaa lagu bedelay kuwa cusbaa maxaa la dhahaa Haramcad, ururka Farxan Qaroole iyo gruubkiisa oo la yiraahdo Haramcad ayaa meesha galay. Kuwaas ayaan hadda rasaas meesha ka bilaabay. Halku meeshan waa meel hadda cabsi ah oo waxaa waaye waa xaalku kasii daraa. sidoo kalena xalay 9 saac habeenimo ayadana waxaa soo dhacday madaafiic oo waxay kusoo dhacday degmada Xamar Jajab, ilaa iyo madaafiic fara badan, waxaana ku dhaawacantay 22 qofood. ugu dambeynna 2 qof ayaa ku geeriyooday oo dhaawac culus soo gaaray. waxaa kamid ah dadkaasi dhintay oo madfaca ku dhacay, waxaa kamid ahaa ku dhaawacmay oo ku waxyeelay, waxaa kamid ahaa qoys aroos ahaa, waxaana la geeyay isbitaal Madiina. gabadhii iyo wiilkii oo aad macnaha u dhig baxay waxaa la geeyay isbitaal Madiina, halkaas ayaa lagu dabiibayaa. Marka madaafiicaas gooni ay usoo dhacday degmada Xamar Jajab ayaa xalay saq dhexe ay ka dhacday 9 saac habeenimo. dhibaatadu waa iska badan tahay magaalada Muqdisho. xaalku sida loo maleynayo ma aha, waa allo sahal. ilaahay waxaa waaye ummadda Soomaaliyeed maskaxdooda ha qaboojiyo, dhibaatadana ha ka dulqaado. Marka hadda waxaa la leeyahay weli fara kama qolno faanoole, maadaama xalay 1 saac iyo rubi ilaa iyo hadda lagu jiro hoteelka Xayaat ee kilometer 4 ku yaalo. waxaa u maleysaa in xaaladda dowladda inay aad daciif u tahay weli, oo aysan awood weyn oo la sheegi karo aysan lahayn, maadaama la leeyahay ilaa iyo 6 qofood iyo 5 qofood dad gaaraya ayaa waxay haysteen 2 maalmood iyo 2 habeen ku dhowaad, sababtoo xalay iyo maanta oo la isku diray, caawana lasii gelaya hadda. xaalku waa iska sidiisii. Marka meelaha propagandada iyo baraha bulshada iyo waxyaaba las dhexmaray waa lasoo gabagabeeyey, waa lasoo afjaray, waa saana la yeelay, wax lasoo gabagabeeyey malahan. magaalada Muqdisho annaga ku sugan, annaga idinkaga xog aalsan, anigaa lugeyga meesha ku tegay oo halkaas kasoo laabtay, soo xog wareystay oo xaaladdu markay xabadii iyo rasaastii isku dhacday iskaga soo laabtay. Marka waa soo xog wareystay, waana la soconaa xaaladdu meeshay tira ay joogto, yaan lagu qaldin, yaan lagu dhihi waa lasoo gabagabeeyey. ninka ku sheega maanta ku dhaw waa lasoo gabagabeeyey, been ayuu ku sheegay. taageernimo dowladna nagama aha, nacayb dowladna nagama aha, laakiin xaaladda meesha ku sugan tahay iyo siday wax yihiin mar walba shacabkaadina u sheegta ayaa loo baahan yahay. xaaladda lama soo gabagabeynin, waa weli way taagan tahay. wixii dhibaato halkaas ka jiro waa u jeednaa. dadka shacabka Soomaaliyeedna waxaa laga yaabaa in waxyaabo been ah propaganda loo tabiyo oo dad baraha bulshada iska sheegayo hawshu way dhamaatay iyo waxba sheeg isbedel iyo wax isbedel ah ma jiro. jugjug meeshaadi joog waaye, dad fara badan halkaas ku dhinteen, dhaawacuna hadda 40 oo sii dhaafay, dhimashaduna 20 way sii dhaaftay. marka dadka aan la helaynin weli meelaha ku jiro iyo hoteelka luuqyadiisa ayaa aad u fara badan, oo meelaha qaar xataa lama geli karo, gudaha hoteelka xataa dad ku jiro weli looma gelin. loo sahal sidii hore ma aha. marka waa soo sheegi doonaa wixii akhbaar ah iyo wixii halkaas kasoo kordho, guul iyo guul daraba insha Allah. marka waxaan idinka codsanaynaa inay youtube-keena subscribe iyo like iyo share la wadaagtaan. wixii barnaamijkaas kasoo kordhana dib ayaan kaga sheegi doonaa. sidaas iyo nabadgelyo.